الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وهرين waxaan salaamayaa madasha dhammaanteed marka horeba waxaan ugu horreysiinayaa Sahra Halgan Sahra Axmed oo runtii aad looga soo sheekeeyey. waxaan salaamayaa madaxda dhaqanka cidda ka joogta. waxaan salaamayaa ganacsatada. waxaan salaamayaa hay'adaha dowladda kala duwan ee ugu horreeyaan golaha wasiirada, barasaabka gobolka Murudijeex, cali cumar guuleed iyo geeljire oo isna madasha iga muuqda. dhammaan haweenka sharafta badan ee reer Somaliland ee fadhiya meesha, howlwadeennada, baahda warbaahinta iyo cid kastoo aanan iminka carrabaabin oo madasha fadhida. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaan caawa farxad bay ii tahay. xilli horena anugu weliba waa imi markii la wasaaraa ku yeedhaysay. mujaahidiinta si gaaraan u maqlaayo anaa mujaahid ka soo jeedo. marka hadduu qofku mujaahid ba sheegto saaxiib baan debaashi waa lagu kala horreeya tii danbaa midha dhashay taayadii beriga hore way shaqayn wey. anyway aad iyo aad baan u baarigayaa, u bogaadinayaa madashan quruxda badan ee sanad guurada ka soo wareegtay xarunta hidaha iyo dhaqanka jamhuuriyadda Somaliland ee Sahra Halgan. runtii anugu dhowr jeer horena waa imi, xogteedana waa hayaa. waxyaabaha hidaha iyo dhaqanka waxay aasaas u yihiin jiritaanka ummadaha. waa xadaaradda ummaddu ay leedahay. runtii in iyada masraxiyad ahaan iyo hal-abuur ahaan iyo aragti ahaan iyo hiba ahaanba la xoojiyo waxaan ahay dadka aadka u jecel, aadkana u taageersan. sababtaa ummadda xadaaraddeeda haddaan kor loo qaadin hal-abuurkeeda hoos buu dhacayaa, buuna hooseynayaa. marka waxay noqonaysaa dad secondary data wax layaa ku shaqeeya ama wax dad kale lahaayeen inay sii isticmaalaan. ummadi inay wax hindisto oo hal-abuur yeelato waxaa aasaas u ah jiritaankooda iyo xadaaradooda inta ay leegtahay. hadda waxaan filayaa in reer Somaliland markii laga soo bilaabo ganacsigii saddex geesoodka ahaa ama triangle business slave trade-ka la odhan jiray ama ganacsigii dadka, inay ka qayb qaadatay dadka reer Somaliland iyo wixii ka horreeya. marka waxaad dareemi karaysaa in quwadaha bariga Afrika, quwadaha ugu waaweyn ay xilligaa ahaayeen xilligii dowladihii reer Yurubiya maanbaawarka Afrikaanka iyo madowga la kala iibsanayay. dadkii markaas bayc mushtarka ka midka ahaa ayay qayb ka ahaayeen dadkani xadaarad ahaan iyo dhaqan ahaanba. sidaa darteed waxaan bogaadinayaa Sahra Halgan iyo hawsha hidda dhowr iyo dhammaan fanaaniinta iyo bahda dhaqanka iyo hiddaha ka shaqaysa ee goobtan runtii contribution ka geysatay. sidoo kale macaamiisha iyo cid kastoo ku barbar istaagtay in marxaladan ay soo gaadho xarunta horumarinta dhaqanka ama muxuu ahaayey munaasabadan cayn caawan u dabaaldegayno ee hidda dhowr inay halkaas soo gaadho. runtii aad baan u baarigayaa, aad baan u soo dhawaynayaa, waa xoojinaynaa. raalli baanu ka nahay commenti gudhiglaha iyo waxaas iyaga lama dhegaysto runtii. oo hadda waxay iska noqotay bulshadii bulsho qof kastaaba uu markiiba heli karayo nacaas fariid aqoon-yahan qof waara mid ookeya mid sheekh daqiiqadaaba in waxa uu qabo dadka la wadaago. marka aad haddaad usii barbaargarayso runtii waad ku habsaamaysaa. muhiimaddu waxa weeye maxaa dhaqan galay, maxaad horumar qabatay, xaggeebaad maraysaa, xaggeebaad u socotaa, xaggeebaad ka timi. inaad intaa garanayso qof ahaan. waddaniyaduna waxay aasaas u tahay in la helo meelaha hanuuninta la yidhaahdo. oo waxaa jiri jirtay sidii berigii hore dee kacaanka aanu ma soo gaadhin anoo yar buu dhacay baan filayaa. dadkaan hanuuninaa kala hufnaa kala haadinaa. hanuunintu waa number one halka bulshada laga jiheeyo oo social orientationska la dhex marinayo bulshada muxuu ahay loo gudbinayo ayaa bulshadana wacyigeeda kor u qaadaa. halkaas ayay bulshadu markaasi noqotaa bulsho istijaah la wixigsanaysa. haddii taa la waayo bulshadu way isku dhex daadataayo waxaa orientationada ku bato meel walba idaacad yar baa laga furaayo stageyadaa bato oo cid waliba iska hadashaayo
qof kasta waa fariid waa qof xigmad badan waa qof hal abuur leh ayuu isagu isu haystaa laakiin meeshan waa meesha lagu kala baxayo dad hal abuur leedahay haddaad hiba leedahay haddaad xadaarad hayso iyo haddaad aragti hayso meesha laga gudbin karo khaasatan aniga wasaaradeyda waa meelaha aan aadka runtii u daneeyo in dhalinyarada la jiheeyo laga wacyigeliyo wax wanaagsan la faro taas ayaynu markaasi meeladan iyo hotelkan ay macnihiisu yahay taa un baynu aad sii wadaysaa waa kugu bogaadinaynaa mujaahid waanuna ku barbar taagannahay wax kasta mar walba waxaa halkan laga sheegay iyadana in muxuu ahaaye waddanku uu aaday doorashooyin baa la aaday waa run doorashooyin ha la aadeese waxa weeye arrimuhu runtii muddo muranadu waa badnaayeen qodayada xukuumadda iyo xisbiga idaacadaha yaryar ee meelaha ka baxayaan waa ugu badnaayeen laakiin maantaanu isyar kala bixinay runtii qolada afgaal waxay tidahdaa nin doorta ha u dhahda marka maanta halkaasaan maraynaano nin dooran baanu haynaa arrintaasina way iska caddahay ninkii markaa hungurahayeyo bal sidaad wax noo